rabitaan leh ay wax uga qabtaan taas oo ah taariikh shir wadareedka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uga furmay magaalada Muqdisho ayaa looga arinsanayaa dardargelinta geedi socodka qorshowleedka mudnaanta leh ee hor yaalla xukuumadda iyo xoojinta wada shaqaynta iyo wadajirka golaha wasiirada. waa inaan ka shaqeynaa markay isbedel colaadda dalkan jirtay naga rara oo nabad waarta inoo rara annagaana la ka rabaa marka inaan ka noqono dadka hormuudku ah. isbedelkaan rabno waa inuu abaar naga raro oo meel barwaaqo ah nageeya, laakiin geediga qofkii wadi lahaa ratiga waa idinka. waa inaa qabyaalad intuu naga raro uu dowladnimo nageeyaa haddii laakiin adiga qur-aanka ka sokow ama ka hor waxaa aaminsan tahay ay qabyaalo tahay ma ka guuri karno. kala qoqobnaanta waa inuu naga raraa markaa isbedelkaasi uu nageeyaa midnimo, laakiin waa inaa ujeedaa waxa dad kale aanay ujeedin. waa in dhaqanka xun uu isbedelku nagu caawiyaa in lagu bedelo. waa mid ay horseedaan wasiirro hogaamiyaal fiicana oo ka dhaqan duwanaada dadka ay rabaan inay hogaamiyaan, oo iyagu tusaale noqda, oo u adkaysan kara xanuun, oo arki kara dadka kale waxaanay arkayn. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa furay shir wadareedka golaha wasiirada ee wada tashiga ah ka lagu dejinayo qorshe howleedka muhiimka ah ee lagu horumarinayo dalka, soo bandhigista waxyaabihii ka qabsoomay, waxyaabihii looga hadlay shirkii kan ka horeeyay, iyo qiimeynta caqabadaha ku xeeran sidii looga gudbi lahaa si loo gaaro Soomaaliya gaarta isku filnaansho dhaqaale iyo mid amni. kulba wasiir yahay ama wasaarad ka shaqeeyo, haddana waxaana la ku qiyaasi doona waxa ay tahay annagoo wada jirna maxaan soo saarnay, waqtigeeni maxaan dhisnay, mas-uuliyad wadareedkeeni maxay keentay. geedi socodka aan soo marnay 20 bilood, maanta waxaan fursad u helaynaa inaan dib u jaleecno maxaa inoo qabsoomay, maxaa inaga halaabay, halkan aan taagannahay sidee baan hore uga sii soconaa. haddii markii hore marka ay nooga bilaabatay si degdeg ah, waxaan joognaa 50% hadda waqtigii ay ummadda Soomaaliyeed noo igmatay inaan meel barwaaqo ah geyno. sidaas daraaddeed waxaan rajeynayaa maanta inaan ku wada dadaali doono qeexitaan cusub inaan samayn doono, annagoo si dhab ahna isu qiimeynayna. run ahaantii si dhab ah oo xaqiiqa maxaan qabanay, maxaan qaban weynay, maxaan qaban karnay. isla xisaabtanka dowladdeena ay ku salaysan tahay annagu hormuud noocee ah ayaan ka ahay. ka dhabaynta la dagaalanka musuqmaasuq oo saldhig u ah barnaamijka xukuumadda ayaa maanta shirka intiisa badan looga dooday dhaawacyada uu gaarsiiyay dalka sidii looga gudbi lahaa isla markaana meesha looga saari lahaa waxyaabaha keena musuqa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay golaha wasiirada ayaa tilmaamay in si looga dhabeeyo la dagaalanka musuqmaasuqa ay laga maarmaan tahay in golaha wasiirada ay iska bilaabaan isla markaana ay tusaale wanaagsan u noqdaan shacabka Soomaaliyeed oo sumcaddooda uu dhibaato gaarsiiyo musuqu. waa maxay waxa hor taagan kobcinta dhaqaalaha? dadka qaar oo aan ugu horeeyo waxay aaminsan yihiin waxa ugu horeeya musuqmaasuqa. su-aalahan raba inaan isweydiino marka waxay tahay, adiga wasiirow maxaad ka qabatay la dagaalanka musuqmaasuqa? wixii kugu aadanaa ma ka qabatay? sideena loo qeexaa isagu? ma ka duwannahay annagu dadka kale? ma ku dhiiran karnaa in wax laga bedelo wixii jiri jiray? mise musuqmaasuqu wuxuu naga yahay afka hadal keliya? su-aalahaas ayaan rabnaa inaan isweydiino. waxaa kaloo muhiim ah in maantay halkan aan fadhino, shalayta oo ka horreysay dad Soomaaliyeed maxkamadda ay ku xukuntay iyadoo lagu soo oogay musuqmaasuq, qaar kalena ay xabsiyada ku jiraan. laakiin musuqmaasuqa ma waxaa loola dagaalami karaa in qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 dembi markii lagu hore la soo xiro maxkamadna la horgeeyo? mise waxay u baahan tahay in la bedelo dhaqan siyaasadeed, qaab dhaqameed
iyo mid bulsho oo dalka ka jiri jiray haddii ay jawaabtu tahay tan dambe wasiiradii loo igmaday ummadda Soomaaliyeed inay dhibaatada ka qaadaan waa idinka shirkan oo socod doona muddo 2 maalin ah ayaa lagu dajin doonaa qorshe howleedka hortabinta ula xukuumadda waana shirkii labaad oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu qabto golaha wasiirada waxaana shirkii ka horeeyay qabsoomay bishii Maarch ee sanadkii 2017